और सिर्फ मजा ही नहीं, ताज्जुब भी होगा। السلام عليكم. jilaaga Hrithik Roshan ayaa soo wada filimkiisa cusub ee Vikram Vedha, waxaana filimka la metelaya jilayaasha kale ah Saif Ali Khan iyo Radhika Apte, waxaana filimkan agaasime ka ah Pushkar Gayatri. fadlan haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir oo subscribe saar gambaleelkana furo oo ka mid noqo asxaabta ku xidhan channelkeena wararka aflaanta. muuqaalkana like saar, aad baad u mahadsan tahay. अच्छे और बुरे में चुनना तो बड़ा आसान होता है सर, लेकिन ई कहानी में तो दोनों बुरे हैं। tan iyo markii lagu dhawaaqay filimkan ay metelayaan jilayaasha aadka loo jecel yahay Hrithik Roshan iyo Saif Ali Khan, taageerayaasha ayaa si weyn u sugayay filimkan oo aad ugu riyaaqay. waxaa hore loo balan qaaday in teaserka filimkan uu soo bixi doono, balse ugu dambeyn maanta ayuu soo baxay teaserka rasmiga ah ee filimka. teaserka filimka ayaa ahaa mid xiise gooniya leh oo dad badan soo jiitay. taageerayaasha ayaa aad ugu riyaaqay oo aad ugu farxay filimkan. waxay sugi kari laayihiin inta uu filimkan soo baxayo. haddaba filimkan wuxuu soo baxayaa oo la daawan doonaa 30 bisha Sebteembar 2022. filimkan ayaa u muuqda mid xiise gooniya leh. asxaabteeda qaaliga aad baad u mahadsantihiin. muuqaalkana like-ta ka ilaawina, asxaabtiinana u sii share gareeya. waynooya muuqaalka xiga ee xiisaha leh insha Allah.